waxaan u malaynayaa kambaniganu inuu idinka xil qaadayo biyihii arintii biyaha rajo weynina jirto rajo weyn baa jirta in laga kaaftoomayo booyad iyo waxa dariiqi waa dhow yahay aan keeno baran hadeenan dhaafin karayn aan baran keeno qurba joogay in reer barameed ahaan ama reer sanaag ahaan ama Soomaali ahaan ama Muslim ahaan wax lagu soo bixiyaa laakiin iskuulada oo dhan baa la rabaa in la tayeeyo sayniskooda la tayeeyo warsangeli baa la arkay wax retirement u doonta dhulka barafka bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan jeclahay inaan idin wada salaamo maanta waxaan ka hadlaynaa waxay xogaa baran baan rabnaa inaan ka hadalno magaalada baran la yiraahdo oo la oran jiray biyo waa baran hadda 30 sano miyay biyo la'aan ahay intii lagu soo batayba guriga badan laga dhistay dadka dibadda jira oo reer barmoodka dadku wax raba inay guri ka dhistaan iyo wax guriga dhistayba guriyaha diasporadu leedahay oo maran iyo jagooyinka ciidaas ay ka badan yihiin cashuurna ma bixisaan haddii cashuur laba ma bixiyo waxa bixiya haddii wax laga qaadona waa wax degan oo jooga qolooyinka jagooyinka iyo guriyaha haysta ma bixisaan cashuur marka waxa la rabaa in wixii kale oo horumar aad si xoog leh uga qayb gashaan ilaa guriyihiini jagooyinkiini iyo guriyihiini maraba cashuur la'aan lagu hayaay marka idinkuna marka sida aawadeed ina qayb ka soo qaadataan baa la rabaa laakiin xilka meesha yaala reer barameed iyo dadka dabadaba u yaala waxa weey dariiqii saddex wax bay baraanay hore ugu soo kacday waa jaamacadda dariiqa iyo biyaha saddexdaas oo laga maarmaan bay ahaayeen jaamacaddii waa tan oo waa taala in kasto aan jaamacad fiican la dhisin kabka badan ay u baahan tahay iyo gacan ku hayn ay u baahan tahay talabaad oo xamarna oo inay halkan sheegtaan inay jaamacadooda digrigu yahay oo macallimiinta bixiyaan intaas aba loogu qabaa wax ka badan hadee ma weydiin karo inaga xamar ma joogno ma ogta marka waxa loo baahan yahay arinta labaad oo in yar inooga dhimantay waa dariiqa ilaahay waxaan ka rajeynayaa reer barama ama masruuf soo dira ama hoos soo dira guri walba $5 laga qaado oo dariiqaas idinkuna inaad dadaashaan oo iska deysaan qabiilka lagu bixinayo wixii bixin waaye qurba joogay in reer barameed ahaan ama reer sanaag ahaan ama Soomaali ahaan ama Muslim ahaan wax lagu soo bixiyaa la rabaa dariiqi waa dhow yahay aan keeno baran hadeenan dhaafin karayn aan baran keeno laakiin iskuulada oo dhan baa la rabaa in la tayeeyo sayniskooda la tayeeyo language-kooda maamulkooda laga shaqeeyo la caawiyo volunteers loo soo diro volunteers waaweyn dad waaweyn oo shaqo gabay meedan lahayn oo volunteer noqon kara barin joogi kara bal wax isku soo day iyo dhalinyaro rabta sanad inay siiso volunteer-kooda halka yimaadaan oo sanad wax u dhigaan ardayda wax kastaba ha ahaatee tacliintuna waa idinka rabtaa kor u qaadisteeda haddaan ka hadlo biyaha waxba la idinkagama baahna dadku iyaga iska bixin doona biyahooda qof walba qadarkiisu bixinaya biyo ku filan ba ma la qaadayna biyaha macaan ma ballan qaadayo laakiin waa suuragal waa rajo weyn in la macaaneyn karo ama la helo mid macaan waa rajo laakiin biyo ku filan baa hadda la hayaa laakiin wali waxa dhiman iyana 100% maaha berrito waxa la bilaabayaa 48 saacadood in biyaha la sii daayo soconayaan oo la qiyaaso goortay go'ayaan inay yaraanayaan la qiyaaso baahday ilaa berrito marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaad taa ka xilbeeshaan waxa kambaniga qodaya waa kambani adees oo leedahay laakiin waa company ma aha hay'ad maaha waa company alaabta la galiyo waxay ka badan tahay $1 milyan bay ka badan tahay qalabkani waxay rabaan baran markay dhamaanayaan inay magaalooyin kale contract ka doontaan oo biigaliya u sameeyaan marka haddii alla yari waxaan u malaynayaa kambaniganu inuu idinka xil qaadayo biyihii arintii biyaha rajo weynina jirto rajo weyn baa jirta in laga kaaftoomayo booyad iyo waxa rajo weyn baa jirta
marka bal taa halka aan dhigno waxa kale baa la idinka rabaa idinku waxaan rajaynayaa in qolba joogta xilkooda gartaan waa idinka codsanayaa waxaan rabaa qoladiina qurba joogta inaad biyaha ka hadhaan oo nagu halaysaan oo haddii alla yari dariiqa iyo tacliinta u jeesataan biidnillah waxaan rabaa inaan idinku sii adkeeyo haddii alla yiri qurba joogay dadkiina retiredka waaweyn ama 3 bilood oo fasaxa heli kama ama ka badanba oo jooga oo jaamacaddan wax tari kara waliba geology-geedu wuxuu idinka baahan yahay laabka in laga caawiyo geology aan laab ahayna hore uma maro jaamacadda quro geology la waxaan maqlay waa tan marka waxa loo baahan yahay laabka in aad looga caawiyo waxaana loo baahan yahay professorska nimanka wax dhigi kara khubaraaga oo fadhiya oo waqti haya warsangeli baa la arkay wax retirement u doonta dhulka barafka ah warkaalaya qoraxda iyada bilaashka u kaalaya oo qoraxda ka dhergo caanageel ka dhergo ilaahay ka yaabo oo qadaysta waqtigiina ineen haray oo jaamacadda wax dhiga oo ardayda iyo macallimiinta iyo professoradaba tayasiya biidnillah